سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. saaxiibada qiimaha badan loo kusoo dhawaada kanaalka YouTube ee Camel Training. Waxaan maanta koorsadeenan HTML ku qaadan doonaa casharkeeni sagaalaad oo aan ku baran doono tag loo yaqaano HTML list. HTML list saddex qaybood ayuu qaybsamaa. Qaybta koowaad waxaa loo yaqaanaa HTML unordered list. Qaybta labaad HTML ordered list. qaybta saddexaad HTML definition list. Marka guud ahaan HTML listisku saddexda qaybood ayay u qaybsamaan. Casharkeenan maanta waxaynu ku baran doonaa HTML unordered list. Sababta loo yiri unordered list waxay tahay listigan aad u jeedo waxa weeye goobooyin kuwaas oo full ah, yacni aan dhaxda ka daloolin. goobo circle waxa la oran karaa tan oo kale inkastoo ay qoraalku yaryar yahay. hadhow gadaal aynu waaweyneyn doono insha Allah. waa wada goobooyin marka lambar sequence ma aha oo la oran karo 1 iyo 2 iyo 3 dhammaan waa isku wada mid. marka sababtaas ayaa loo yiri HTML unordered list. waxa la mid ah tan oo ah goobadii caadiga ahayd iyadoo wareegsan dhexdeeduna maqan tahay. iyana waa goobooyin oo 1 iyo 2 toona maaha ama ABC maaha. sidoo kale waxa xiga square. square-na waxay tahay iyana waa shaxanka afar geeska ama lix wajiilaha ah. dhammaan waa isku wada mid, wax sequence ma jiro. waxa iyana la mid ah inaanad waxbaba u samaynin xaggeedan dambe, yacni wax listiya unordered ha ahaado ama ordered ha ahaado inaanad waxbaba xagga dambe geyn, ha yeeshee aad qoraalka koowaad xaggan uga jarto. sidaad u wada jeedaan qoraalka koowaad ee sharaxaya imika halkan madaxweynayaashii soo maray Soomaaliland markaan leenahay qoraalkani wuu ka soo go'an yahay, xaggan ayaan uga soo go'an yahay, halka uu qoraalkani ka bilaabmayo website-ka Barbaloweysa. marka sababtaas ayaa listi loo yiri. waxaynu aadaynaa hadda page-keeni HTML ayaynu kusoo samaysan jirnay casharada. waxaan bedelaynaa background-ka marka hore brown ahaa ayaan ka dhiganaynaa green si farta ay isu qaataan. background-ku green, Ctrl S. waxaynu imaan halkan waxaan qoray tag font si aan waxyaabo badan bedelo. font space ayaan baxayaa, style ayaan qorayaa. markii style equal quotation-nada ayaan furi doonaa. waxaan ku dhex qori color laba dhibcood. taggan hore ayaan soo marnay marka waxoogaa in la is xasuusiyaa dhib ma leh. yellow ayaan deyn, space ayaan bixi, calaamadahaas ayaan ku soo xidhi. font size ayaan qori laba dhibcood, waxaan ka dhigan baa 15 maxuma. intaa markaan ka dhigano labada calaamadoodna waan ku soo xidhi. Ctrl S. taggana waa soo wada xidhinaa. taggiisi qaybtii kale xaggan baan ka soo xidhi font. marka taggu saas ayuu ku xidhan yahay. waxaan sameynay inaan hadda bilaabo listigii. halkan waxaan ku qoran H2 qoraal ayaan iskaga qoran macaamiisha shirkadda sanadkan. waxaan soo xiraynaa taggii H2 ka waan soo xidhnay. hadda waxaynu bilaabaynaa listigii magacayaashii ciddii ku guuleysatay abaalmarinta.
waxaynu ka bilaabaynaa ul amar loo yaqaano. Marka u waxay u taagan tahay unordered halka l ay u taagan tahay list. waa listiyada aan sida saxda aan u list garaysnayn. marka waxaan ka bilaabin tagga ul halkan aan ka soo xiri. waxaan bilaabi hadda inaan magacyaashii aan qoro. waxaan ka bilaabay iyagana li oo ah list items, waxyaabihii la list garaynayay. waxaan qoraynaa magacyaal tusaalayaal aan iska qoran. waxaan soo xidhaynaa tagga kale li. waxba ma ishawlayno, taggan ayaynu copy garaysaan. magacyaasha oo dhan isla taggaas unbaad siinaysaa. magac unbaan ka baabiisan. magac kale ayaan bartan ku qoran. mar kale ayaan halkan ku paste garayn doonaa copy-gii hore aan watay. saas ayaan wadi ilaa 5 ayaan ka qori doonaa tusaale ku qaadano. waxaan qoraynaa magaca u dambeeya. intaas inagu filan. xaggan aan soo durdurkiyo. Ctrl S browserka ayaan soo kicin. waa refresh garayn. macaamiisha ku guuleysatay abaalmarinta shirkadda ee sanadka. weli waxaad moodaa fartu inay yaryartahay, aan waaweyneyno ku darno. halkan 15 weeyaan. 20 aan iska niraahno. 20 ugu filan. hadday si fiican muuqataa. hadda wuxuu siiyey listi aynaan inagu amrin oo si temporary u siiyey. marka listiga haddii aad rabto inaad iska bedesho, inagoo 4 jeer bedeli doona. mar dhiski ay noqonayso, mar circle, mar square iyo mar ay none noqonaysaba. 4taaba waynu ku eegi doonaa. waxaynu imaan doonaa halkan ul ay ku qoran tahay. waxaynu ka furaynaa amarka style markaan qorno halkaas baynu ka furaynaa columnska. waxaynu ku qoraynaa list hyphen ama minus style hyphen tape 2 dhibcood. halkan markaa waxaad gelinaysaa shaygii aad rabtay inuu ka soo muuqdo. circle Ctrl S balaan browserka soo kicino. circle ayay isu bedeshay oo waad u jeedaan. waxaynu bedelaynaa haddana listigan oo aynu list kale ku bedeli doonaa. Ctrl C Ctrl V. halkan waxaan ku qorayaa square Ctrl S browserkii ayaan aadi oo refresh garayn ama F5. diski square-rada ayaa soo galaya markaad amarka diski ku bedesho halkii aynu hore u isticmaalnay circle. haddana mar labaad ayaynu bedeli doonaa. waxaynu tegaynaa copy-gii markii hore aan sidanay ayaan halkan ku paste garayn Ctrl V si aan isugu keen dhexgelina interbandihii kala turkin. halkan waan bedeli. waxaan ku qori none. Ctrl S browserkii markaan ku laabanay aan refresh garaynay waxa soo baxay isna qoraalkan aan waxbaba wadan xaggiisa dambe oo aynu ka dhignay none waxbaba ha siin listiya. amarkaas aynu siinay none waxa uu bedelay inaan waxbaba listiya siin
qoraalkii hore waayahay. amarka ugu dambeeyana wuxuu noqon doonaa diski. halkan ayaynu bedeli markaan qoraalkii paste garaynay waxaan dhahaynaa diski. amarka yar ayaad qori dabeetana waad save garayn control s waa refresh garaynaynaa. iyana waxaa soo gashay goobada fuulka ee aan dhexdeedu banaanayn laakiin soo shabahda goobada hore. marka afartaa qaab ayaad uga faa'iideysan kartaa HTML unordered list. siyaabahana waad u list garayn kartaa. maanta casharkeenu intaas ayuu ku koobnaa. casharka xigana insha Allah taala waxaynu ku baran doonaa HTML ordered list iyo HTML definition list labadaba aynu ku qaadan doonaa. marka casharkeenu maanta intaas ayuu ku kooban yahay. waxaan rajeynayaa inaad soo samayn doontaan laabkiisa. waana idinku boorinayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.